kadib shir jaraa'id oo guddida qabanqaabada shirweynihii kulmiye kaga dhawaaqeen goorta shirka xisbigaasi iyo goobta uu ka dhacayo ayaa waxaa qoraal ka soo qoray Barkad Jaamac Batuun afhayeenka xisbiga wadani. Barkad Jaamac Batuun ayaa ku dhaliilay xisbiga kulmiye in xaruntoodu burbursan tahay isla markaana daroortii roobka ka soo gelayso, wuxuuna u soo jeediyey inay hantida ummadda ee ay hayaan ka hagaajistaan xafiiskooda maadaama ay 10 sano jirsadeen. waxaana uu dhignaa qoraalkiisu sidan: idinka oo ummadda u sheegay inaad 10 sano talada dalka haysaan, xisbigiin oo xilkii xukuumadda iyo xoolihii ummadda haya, maanta waa idiin ayaan darro in xarunta xisbigiin aad ka dhex hadlayseen siligii jiinkadu idinku daroorayo. 18 sano kadib muuqaalka xaruntiinu markay noocan tahay, sidee ayay u ekaan doontaa raadka xukuumaddiinu 2 sano ee soo socda kadib markay muddo xileedkiinu dhammaado? xisbi qaran ayaa tihiin, xisbigii talada dalka hayay ayaa tihiin, sharafta iyo bilada xarumaha xisbiyada ixtiraama. 1991 lama jooge 2020 ayaynu joognaaye, xukuumaddu ha dambaysay xarunta xisbiga iska hagaajiya. Cali Axmed Cali oo loo garan og yahay Cali Caliyo ayaa ganafka ku dhuftay qoraalka Barkad Jaamac Batuun oo afhayeenka xisbiga wadani, wuxuuna qiray qaar ka mid ah qoraalkiisa halka uu bulshada ku soo jeediyey qaybo kale oo ka mid ah hadalkiisa kiyo aad moodo inuu ka maadsanayo. wuxuuna yidhi: maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii 8 2020 ayaa guddiga qabanqaabada shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye lagu dhawaaqay maalinta uu noqonayo oo 4 bisha 10 2020, 3 maalmood iyo Hargeysa oo madashu tahay. intaa markaan ka gudbo ujeedada qoraalkayguna ka hadli doono in mudane Barkad Jaamac Batuun oo ku hadla afka xisbi qaran ee mucaaradka ee wadani waqtigan iminka lagu jiro ka hadlay muuqaalka bartii laga ilaabiyey waqtiga shirweynuhu qabsoomi doono. Barkad Jaamac qoraalka uu bartiisa bulshada soo dhigay laba waan ku raacsanahay oo ilaahay baa caadilahe. waa run in kulmiye 10 jirsaday intii uu kursiga ku fadhiyey, waa run in kulmiye yahay xisbil xaakim, laakiin arrinta saddexaad ee mudane Barkad afka ku dhuftay waa arrin qofkii damiirlihii aanu ku raacayn. saaxiibkay Barkad wuxuu yidhi kulmiye wuxuu hayaa xoolihii ummadda oo ujeedadiisu ahayd in muuqaalka sawirka muujinaya daroorta ay ku hagaajiyaan. waa midka koowaade xaashee xoolaha dadweynaha Somaliland. xisbiga kulmiye ma aha mid u soo gurguuranaya sidii uu ugu hagaajisan lahaa baahida xisbiga iyadoo ay ula siman yihiin asxaabta kale ee qaranku. miduu gacanta ku hayana ma aha oo waa awood dowladeed. tan labaad, dowladda madaxweyne Biixi ma aha mid ka kooban xisbiga kulmiye oo way ka ballaaran tahay, waxaana ku cadeynaya in aragtida dhuuban aanay lahayn. waxaa ku jira dowladda shakhsiyaad ka mid ah hormuudka xisbiga wadani oo doortay inay dalkooda iyo dadkooda u adeegaan, meel dhigaan xisbinimadooda. sidoo kalena ay dowladda ka mid yihiin shakhsiyaad hormuudka kulmiye ka mid aha oo maantana meel dheer iyo meel gaabanba u fuulay u adeega Somaliland. therefore kulmiye xisbil xaakim ha ahaadee, dowladda ayaan ku koobnayn xisbil xaakimka. sawirkii markaan u soo noqdo, taageerayaasha asxaabta qaranku guryo ka samaysan quraarad ama galaas kama soo toosaan oo bulsho meel kasta ha ku noolaatee daroor, jajab, baahi iyo waxyaabo kale oo badan waa ka siman yihiin. oo maanta in daroore cay noqoto oo wax lala yaabo. xisbiga kulmiyana ammaan bay u tahay in ummadda uu wax la qabo. ee su'aal: xisbiga wadani oo afhayeenkooda u horeeya ma igu raacsan yahay in dowladda madaxweyne Biixi ay ka ballaaran tahay xisbiga kulmiye oo xubno kale oo xisbiyada mucaaradka ka mid ah ay ku jiraan? ugu dambeyntiina, Cali Maxamed Yuusuf oo ku magac Guray wuxuu isaguna ka deeriyey mustaqbalka siyaasadeed ee saaxiibkii Maxamuud Xaashi Cabdi oo ay kulmiye ku wada jireen maalmihii u dambeeyey. wuxuuna sidaa ku sheegay qoraal uu isaguna soo dhigay bartiisa Facebook, taasoo ku kaliiftay kadib markuu Maxamuud Xaashi ka waayey madal harimo sharafeed loogu sameeyey Hotel Mansour oo ay ka soo qayb galeen inta badan hoggaanka kulmiye iyo xubnaha wasiirada ka ah xukuumadda madaxweyne Biixi. wuxuuna yidhi: saaxiibkay Maxamuud Xaashi Cabdi laga bilaabo saacaddii uu caddeeyey damiciisa xilka guddoomiyaha kulmiye ayaa dibadda la dhigay. sida ay la tahay ergada shirweynaha uu doonayo inuu ka dhex tartamo 80% waxaa laga yaabaa inuu iska leeyahay oo ribitaankiisa lagu soo xulayo madaxweynaha oo isagu ah mulkiilaha xisbiga kulmiye xilligan ama inta xilka madaxweynaha uu hayo. sidaa daraaddeed inta uu doono ayaa dooran doonta, inta uu diidaana way diidi doonaan. marka Maxamuud Xaashi miyuu doonayaa mise uu diidan yahay? haddii uu doonayo haa, haddii kale
ha sugo xilka uu doonayo muuse dabadi ama sidii faarax nuur ha yidhaahdo. ragkaa faqay rafiiq dhinaad tihiin, talo lagaa reebay meel aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco. waxaan filayaa in badan ama inta ugu badan kaadiriinta lafdhabarka u ahayd xisbiga kulmiye iyo xaalkoodu halkuu ku dambayn doono. sidaa waxaa qoray siyaasi cali maxamed yuusuf oo ku magac dheer Guray.